markaan weydiin lahaa wax weeye 2110202 waa 1 billion 710 dhismayaasha iyo dugsiyada iyo isbitaalada gudoomiye waa taabatay ma isla kuwa un baa mise waa qaar ka duwan horta ma badna hadii sida loo eego su'aasheedu waxa weeye 3110202 waa billion iyo 700 kun dhismayaal iyo dugsiyada iyo isbitaalada ma isla kuwan imaka baad ka hadlaysay Hargeysa ama UNHCR kala hadashaan ama xagga hay'adana ha ahaatee ma isla kuwaas mise waa qaar kale oo ka duwan kuwa aynu doonayno inaynu halka wax kaga qabanno point-ka labaad waaye aska dhaba 1.25 3110202 waa head-keena ka mid waa 1.7 1.7 billion الله نقول طلع الله اسمها باش كسر فوقها سنة كي ولا واحد جريه هاف مشروع هاف في كل سنة تنجليه وانت واي هاي account كله سواشي تحوي 300 مليون بركة عياش قحوتيجا كل general information كاجو سفي عنو جرو يسقون وتجيرو فور وحير ويسقون لك أرنت بركة عياش كله بقول يلي إحنا كن أو كويس الكلام ما نوتها بنكرتها قبل هذا يسدي وكله بدينهين بركة عياش بركة وحكى له بركة صار على هالجيسة وبركة عياش عم سميسة maxaynu markaa gudoomiye hawsha doonayna inaynu ka qabano barakacayaasha kulli meel la dejiyo u baahan yihiin biyo way u baahan yihiin caafimaad way u baahan yihiin xanaano way u baahan yihiin isbitaal way u baahan yihiin qorshe ahaan ka hay'ad ahaan ama xukuumaddan loo qorshaysan aanu doonno in cid walba wax nagala qabato dadka barakacayaasha waxay u baahan yihiin inta qofka bani'aadamka u baahan yahay caafimaad waxbarasho biyo inta qofka bani'aadamka u baahan yahay deegaan nadiif ah sax guryo هوي waxa soo dhaka horeeya suuliyo waxa soo dhaka horeeya dhul ay leeyihiin la helo dhul ay leeyihiin baa inta laga dhisay imika maayka berbera aad baan ugu mahadnaqaynaa 400 oo guri baa loo dhisay dhulka guri laga dhisay meesha magaalada cad 400 oo guri Hargeysa ilaa imika tan dhul helay meesha loo naasah loo wadada 200 ku laga rabay kuntan guri baa imika loo dhisay كنا متعلقين بيه. ليش اللي يلاحظوا كورمة حتى كنت قريبا يلا بلادنا. ووحي يقول كل شرعية سنة هي ما يهرب أين لا شرعية كل خسيان. لكن تد كان يقول دلية هي سوري كم قلت. كم. مش لما لولي وكنت تقول عليه أحمد كبيرين يليه برشلي يليه أنت بويليه. قلح. ملولا يلا بلاد. وحلمنا نصاب لوتسي ماشي ددليه ماشي دكتور كليه هذه اساسي وقدم وراها سرد حفظ سكاسنا وسرد حفظ سكاسنا ما كملش ولا لسه حروتي عفمات ان الغوري تشو سرد عفمات الغوري تشو سكول كي مثلا لسه waxaan ku wareejinaa wasaaradda waxbarashada iyo macallimiinta ay isa in kameraha noo qofaysan in aan هرمون هذا أمره هلا وحكم إذا هالكم اشتد هوسا وحكم إذا محمد مقول له مرضى وحكم إذا الناس الله مرضى أفر تام مرضى شن تام مرضى مرضى هذا الموجود دران ونقول هذا ما يكيو وحوار ديارنا بيرهي ومرضى وبهن يمكن أخذنا حديد الله هلا كل مركز له هلا أم بأديك بسلا قرن كريا أنت كورس أرقام كريسة مشت واي قفكش كل كلام وحنا يسولي هكذا واي كرتنا كريا واي ترى ده دول كل شيء كل شيء بتجوا واي كده واحد مقتدر بس أي قدام يرال له وشقد ما كم تهدي بقى تبرع وحل له ما تقاضي هذا وح وبدنا يكون بحذا وحويا سفرات تجيه تبلو تجيه ولا شرية ولا مرتقى هذا شغالها هي أصلاً كل ما تشربنا مرتقدنا سكودا الجناس هو يسمع بروفاي أنا ما يقول كلامنا أصله بعض واي قضب سؤال شيء ده كلام واحد يقول شيء قضب روح قدومي وقد شوابته وها لما بين الضيفين شغاله أنا هين جوت ده لكن ولي هربا ولي شيء يها وراه دي شيء مركا تا مدامي
waxaan tixgelinteeda qaadanayna maadaama warbixintaadii hore noogu jirtay inay halkaasi dhan tahay waxaan malaynayaa inaynu xidhka sanadkan wixii ka dambeeya aynu u dhigi doono sida exactly imika warbixintaada ku jirtay ay tahay in xidhka iyo wixii ku jiraba sanadka dambe howlaha kale ee muhiim hay'adda u in magac ahaan loo bixin doono shaqaalaha aan joogtada ahayn ayaa yacni magac ahaan ku jira marka ku sheegaya ku yahay waay oo kale shaqaalaha aan joogtada ahayn waxa weeye waa shaqaalaha madaxweynuhu magacaabay gudoomiyaasha gudoomiyaha wasiirada kuwaas shaqaalaha joogtada la yiraahdo waa la mushaarkeyga waa sax shaqaalaha waa joogtada marka waa wixii dee meesha ka tegi karaa shaqaalaha joogtada ahayn inta beriida ma khalad way ku jirayaan dee hay'adaha uga jirtaa waay su-aasheeda ugu dambaysa waxay ahayd qodobaad weydiisay weeyaan oo kale hay'adaha ay ahayd hay'adihiina gudoomiyuhu inoo qaxay inta su-aasha ugu dambaysa aan kulley wax weeye IDB bari bay ku badan yihiin horta dadka barakacayaashii liiska iyo sida aan u heli karin in xafiiska uga heli karayno iyo weliba lifaaq wixii aad nooga baahan kartaan aad soo kartaan daytaalka waa iska yaryaa meel walba aad siraadaan waxaa malaha way kala qaban karaan inuu ayadna le recommendation su-aasheeda taas ma kusoo gabagabaynaya kulley imka liiska halka kuma ayno laakiin taana waxa weeye waa waqtiga thank you very much aniga waga dhantay gudoomiye oo tala bixintiinina iyo wixii aanu markaa tala ahaanad odhan lahaydee waxaas waa iga dhantay imisoo xero qaxoonti oo si rasmiya u diiwaangashan baa iminka waddanka ka jira imisaase tembareeriya oo kumeel gaara macnaha dee goobo barakacyaala NDBS waxaa la yidhahdaa barakacyaal baan ka wadaa imise barakacyaala oo waddanka xerooy oo de ka jira iyo oo rasmiya iyo intaan rasmiga ahayn baan rabaa su-aasha ku weydiiyo Somaliland ku sugan macnaha dee goobana waa kumeel gaar goobana waa imika mudday dee shaqaynayaan soo maha macnaha dhammaadkii 2021 waxaa gobolka Sool laga saaray dad halkaa deganaa oo ay dawladdu ka saartay oo gobolada Soomaaliya ka soo jeeday dadka nabadgelyo daraa lagu dadka nabadgelyo daraa lagu eedeeyay sidii la sheegay wax idin rejistaranaayo barakacyaala oo ku jiray miyay jireen maxaad kala socotaa insha Allah goobta NDBS-ka ee Mandheera ku taala waa su-aasheeda saddexaad dadkaasi in badan waxay ka cawdeen in aanay goob caafimaad lahayn dhowr jeerna la diiwaangeliyey in guriga loo dhisi doono bal ayadana inaad macluumaad naga siiso insha Allah taas su-aasha kalan ku weydiinaya waxa weeye hay'adaha dadka ajaanibka ee dalka jooga waxay diiwaangelisay waxaanay siisaa kaadh aqoonsi oo loogu aqoonsado sifada ama santuska ugu jooga dalka noocay tahay kaadhka waxaa saad bay u furtaa $10 bay ka qaataa kaa idinku maxaa kala socotaan intaasaan kusoo koobi lahaa tirada kaalintaan kaga bilaabayaa inta dhul ay leeyihiin degan iyo inta dhul aan leeyihiin degan temporary rasmi bay kala noqonayaan ilaa wax marka hore wada rasmi wada barakayaan in fact hadda tirada rasmiga dusha kama hayo laakiin de xafiiskay taale waa naga heli doontaan waa noo kala qoran tahay waxaase badan kuwa iminka dhulka ay leeyihiin degan ayaa badan dadkii soo laga saaray barakacyaal mid ku diiwaan gashanaayeen halkaasi waa su-aal u baahan oo arrin siyaasi ah xildhibaan adaan kaa weydiinaya dadka Soomaaliya ka yimaada ma ajaanib baad u taqaanaa mise muwaadiniin baad u taqaanaa kaba u taqaanaa dee nooba diiwaan gashanaanay
arrintaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo migration shaqo ku leh maaha wax naga noqoseeya qaxoontino nagu diiwaan gashana barakacyaal markii hore maana naqbalayno ajnabi baan u naqaanaa anagu taasina waa taa Mandera horta waad ku mahadsantahay intaad xaafadaadii soo qadinto ku kala waxba iga weydiin waliba qaybta Musa Cabdullaahi weydiis waa dhigayso xaaji waad ku mahadsantahay war wadareen dhigayso Mandera waa meesha ugu badan ee wax ugu badan aanu geeyno mar kasto wax yimaadaan war waan kaaga dhigin yaad raada ka hadli kaliya dhigayso xil dibandee dhigayso please xil dibandee ka dhigayso dadku kale weydiisada silcaya aftaada ku silcaya isweydiin Mandera waa meesha ugu badan wax geeyno waana taqaanay laba u qaybsan tahay wax walba waxa laba u qaybiyay isku dileen labada qolada siyaasadda baa loo keenay marka hore labada qolaba siyaasadda baa loo keenay arrin deegaan baa loo keenay mushkiladana haysatana waa barakacyaal arrin deegaan loo dijiray laba reer oo meel isku haystaa ay dadkeena yahay marka waxa soo mashaakil anaga haystaa ma jirto meel loogu ballan qaaday in guriga loo dhisay totally ceelal baa loo qoday wixii la siin kara marba hay'adaha noo yimaada markii inta sano hayno inta badan waxa Mandera geeyo labada meelood oo kala qaybay laba isla ugu qaybay taasina waa taa hay'adaha dadka diiwaan geliya ta lacag bay ka qaadaan warka ma hayno iyaga baa lacag siiya kasi lacag u qaada waxba kama jiraan warka hay'ad ba inta kaarsiiso lacag ka qaada waxba kama jiraan warkaas xil dhiman dib u hubiyo hadii soo hubiyo soo xaqiiji taxaqiiqo talaabin ka wada qaaday hay'adda waxa samaysan waxay noo yaalaan iyada lacag bixisa kasi lacag u qaada afar soo dib u sameeyay الرحمن الرحيم gudoomiye waxa jirtay dab dalka magaalada Hargeysa iyo dalka guud ahaan taabtay oo khasaaro badan gaarsiiyay suuqa Waaheen ummadda halka wax ku noqotay Ilaahay baynu u weydiinaynaa inuu waxa weeye wax ka khayr badan ugu bedelo waxoodii waxay ahayd dhaqaalaha dalka qarin saameyn weyn ku yeeshay waxa dhacday oo guddiga lala soo wadaagay xog oranaysa shaqaalaha hay'adda barakacayaasha in laga jaray qofka eedaa 100 milyan iyo 800 oo laana ee waday xaqiijin doona xogtaas waxay tilmaamaysaa inaan ikhtiyaar looga jarin dadku muwaadiniinta inay ka qayb qaataan wixii dadka gaari dhaawac waajib ay ku tahay oo laakiin warkaanu hayna waxa weeye qofkii eeda ahaa mushaharka qaadanayay milyan 800 laga jaray waliba mandatory laga dhigayo waxa weeye consensus lagu gaaray aanay haynin gudoomiye aad adigu go'aamisay ati ana soo go'aaminaya loona caga jugleeyay lacagta laga jaray si aan waxa weeye xuquuqdoodii si aan xuriyadoodii waafaqsanayn marka xaddiga lacagta maxad ku salaysan xaddiga lacagta ما جرتها ما حد كسليس ما جرتو برانا وكل شيء جواد أنا وكل شيء جواد قدومي كان يجي هذا كان يجي يكادي يقول لفتي قدومين هذا كان يكادي يا دبانا الهاي على القدومين مع من بدي لحظة حلم الشيخ سعيد حلم الشيخ سعيد إلى هذا ما يسألني كسر الله حلم الشيخ سعيد قرآن ما صار له قرآن حلم الشيخ سعيد صوت الله حلم صوت الله وهذا ما هو شغال كنا طبعا محمد عيال هو كبرس هذا اللي يقول كبرنا قواريه يا كده الشاب محمد عيد والله الله يا قدوميه شرعي دين احترام سيمبل قضيه اللي هو كلامه كجواب صح ها وين حسب سوق لي قدوميه شرعي انه ولا احترام شرعي ده احترام شرعي الاحترام قدوميه قال له شو صور ما له مش ود شيطان كنا خميس كستا شغاله ولا شيغنا waxaan ka wada lagu dhan maxay qabsoomay wiiga doon maxay qabshaysan waa shaqaalo sidoo dhigay maxaa talooyin haynaa maxaa ku soo kordhinaysaa maxaa suuqa inuu jira ee dacaayada ee u baahan inaan wax ka qabano khamiis kasta wala soo geeyay kuul bay maadaan mas'uul waa dabkii baa dhacay shaqaale baan soo
waxaanu isweydiinay si guud annagoo wada fadhinaa arrintaa maxaynu ka geysan karnaa dadka qaar baa jira hay-ada badan ka qaata waxaa si ikhtiyaariya qof waliba u bartay wixii hay-adaa ka qaata lacag dadka qaarkood baa 500 600 700 ambayro ku jiro ma beyrugana ku jira gurno hay-ada ka qaata sax waa inaga hay-ada guna nagu samayno sax mushaharkooda bil ha bixiyaan wixii kale ama ay ha noqdaan ama bii ha noqdaan ama si ha noqdaan half inay bixiyaan intii jira anagu bixin mayno waan ku reebo intii jira bixin mayno waa correct waana la arki doonaa anagu waxa bixin kara mayno waan ku reebnaa waa cid walba waa ikhtiyaalkaaga iyo dowlisteeda inta kaskeeda ma jirto waa wada fadhiya intii markaa bixin karaysay iyo labada mid ku helaan waxaan ku talagalay mid kale abril ramadaan baa soo gashay mayna waxa soo galay ciidii waanu ka diinay may bay bixiyaan maanaan bixin lacagta weli maanaan gudbin sababtaan gudbin waxay laba gobol baan noo harsan sanaag iyo awdal baan weli soo dirnay bishan soo dirayna marka maalmaha soo socon ku talagalay inuu lacagta wareejino marka gudoomiye cid khasab wax lagaga qaaday ciidii jiraan oo bixin mayno waad fasaxantay baan ku in fact markii waxba aan anigu isu geynay laakiin markii dambe waxa ay noqotay qariin inay bixin mayno ma bixin karayno marka waan isu geyn doonaa dabad markaas aan sheegi doonaa ilaa ka dhigo adigu ilaa 20,000 17,000 inta u dhaxaysa noqonaysa waxaynu u baahannahay kulanku intu soo degaan loo soo taa waxa weeye adigu naftaada hadda horta imanku la soo caado man hadlay ودقالنا لو سو جيرنا وهركينا ادنا ويديس ادنا ويدي هركينا هذا هركينا ويدي بدكاش ودكنا ويديس وابكم ما سنت كل حق بيولي هركينا ويدسو مسؤول بدكتو وحلكودا بكو صار انا مسؤوليه انا صارت هذا كو صار مسؤوليه انا صارت انا صارت مسؤوليه حق بيولي بان فوريه way halka hanqad hadana gudoomiye waad soo dhawaanaysaa xoog weyn lagu faan dagaalamaysa saakin qodobka 88 ee xeerka nidaamka kala xadiinta ma aragtay hay'adaha dawladda waxa uu sheegay inaan madaxda hay'adaha gudoomiyaasha komishanada agaasimayaasha guud inaanay wax siyaasada aanay gali karin xaqna u lahayn galaan adigu sharcigu ku baneeyay inaad maalin walba siyaasadda iyo mas'uuliyadda u jawaabto dadka maagto ma noo sheegi kartaa qodob waa su'aasha ugu horeysa weey maalin dhaweyd oo sanad guuleed xisbiga kulmiye la qabanayay hadal oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi hore uga jeediyay saxaafadda ayaad ka shiday on TV-ga ka daawanayay live-ka TV-ga maxaad uga jeeday waxaad uga jeeday in dadka reer Soomaaliland cariso oo boogaha aad xoqdo oo ay istilaan baad uga jeeday maxaa u jeedadiisu saddex waxaad sheegtay inaad State House-ka maxamed mooga laga gooboodo inaad ka rarayso dadka danyarta ee degan aad rabto meel kale loo raro maxay tahay ujeedada laga rarayaa dad mas'uuliyiin loo banaynaya iyagoo dadkii xaq u lahaayeen danyarta ay degan yihiin maalinkaaba biyaha lagu sameyn karin suuliga lagu sameyn karin waxa u baahan in lagu qaybin karo maxay tahay ujeedada laga rarayaa su'aashaadan taa daba socdaa waxa tirada barakacayaasha iyo qaxootiga dalka jooga korka kama hayo maxaad korka ka haysaa noo sheegi kartaa oo shaqada kaliya qaranka oo aysan taas inaad tirada barakacayaasha faris bal meel kasto lagu weydiiyo sida u jawaabto maxaad korka ka haysaa noo jawaabto waxa sheegtay qaxootiga wuxuu dhibaanka ku weydiiyay ma dheera in siyaasad loo keenay meesha waayo cidda siyaasadda u keentay ee aad sheegaysaa sayna ka kala martay intaas kugu joojinaya su'aalo soo dhaw dadka la rarayo malaha waad ka maqnayd warbixinteedii hore dadku dhulkay joogaan lagu hagaajin kari maayo dad baale dhulkay joogaan maxamed muuge iyo naasir dad baale reeraa leh
marka dhul leeyahay ma la dejinaya waxaan korkaayan ku sheegaya quraankan korka ka haya iyo hadallada intaad ugu tiraahdo qaxoontiga ma dheeraad jiray qaxoontiga barakacayaasha ma kala taqaanaad marka hore qaxoonti ma barakacayaan siyaasadda la keenay guudiyay siyaasadda arrintaas hata ma aha wax ku yaala wax inoo yaala adeeg barakacayaal qaxoontiga kala hadla si marka soo istados kiyale wadiga dad bale dawladda leh marka dawladdu degrada dawladda leh baan ku yiri shaqada marka dawladdu degrada wareer maxamed abay ana qabqabtaada ila soo gelinay dhulka ii kaadi dawladdu haday go'aan ku gaadho dhulkeeda inay u baahato dib u baahanaysaa wali go'aan lama gaarin waan ku tala jirnaa waan ku fikirnaa dhul boo ma hayno laakiin dawladdu dhulkeeda iyada leh waxay ujeedada kan looga rariyaa markaas iyo dan dhulka meesha wali ma tagta ma agta saytahay war soo eegto markaas garan doontaa war soo eeg meelad warka inay sheegin hor soo arag saytahay meesha nidaamyada doonayso shaqadaada way maxay nidaamiyeen malihaan shaqadeeda shaqa dawladda hoose wax jaahilnimo baad kula hadlaysaa war waa shaqa dawladda hoose dhulka nidaamkiisu aanu malihi hay ugu celin halkan markaad fadhido wax kasta oo shaqada xafiiskaaga la xiriiro wala weydiin ima weydiin kartid inaad siyaasadda ka hadasho oo dadka maagto u sheeg adeerta shaqadaada ma war ka soco wax kale weydiin shaqadiisa taada ka soco yeetay shaqadiisa hadda dacwad qabto heeda shaqaalawta dacwad ma qabo yeetay shaqadiisa oo heeda shaqaalada dacwad qabto hadal badida hadalka inaga jooji wax kale weydiin war kuma tala taas hadal badonaysa hadalka maxaa ka qosay taas ma shaqo ku tala adiga shaqo ku tala ma war dan kala qabo war shaqo ku tala ma war ood xisbiga ka soo dhaxda la soo baray war wax ku sheegay war meesha mees kaga taga yaad jooji war ka jawaab ma adiga in khayr nabahaya war hanoo sheegay wax yahay oo adoo kamid ahaa dadkii dejinaya xisbiga kulmiyo guriyaha dejinaya bad kamid ah dhacdo ka dhacday baa jirtay waqtigaasi waa 2008 shirkii xisbiga kulmiyo ku qabtay magaalada Burcale harmada qaangaar baa markaa naga sii karta dhacdo ka dhacday qaangaar baa madaxay 2008 maxay dhacday maxay dhacdo ka dhacday aniga yar badii kaadi maxay dhacdo ka dhacday naga sii karta maxay haydeen horta ku dooriyay waxay sheeg waa bal yar kaadi sheeg da waxay hayd bal dhacdo oo sheeg karta dadka u sheeg waxay hayd baan ku yiri markaasan garanaya ka hadlay bal sheeg horta waxay hayd anoona dhacdo mamuuran iyo qarjaciyo waxaan yiri iyo bahalkeen isku sawirayso ma doonaysaa kelmadeedu ku dooriyay waxaan umaleeyaa xoguraysi inaad nasiiso lagu soo talgalma inaad maagtad war idinka ku talagaleen halkan dad ku maagtaan war wuxuu weydiinaya markay xad maalinta saa u tiri xad maalinta cirro la hadashay war cirro laba niilo siyaasiyiin oo wada hadlayna weesh maxaa ka ايش دخلك بين الدسوس يا برمان ايش دخلك بين الدسوس حير كان جوابيه اي كذا ادري كذا ادري كذا ادري كذا ادري كذا ورياره war xisbigiina marka la tabtaha wada cabaadin iyo xijisto xamiila baasha adeeran ku sheego xeerka shaqaalaha dawladda ma akhrida ee imika ay ku basqaraysay ma akhrida qodobkiisa afraad ma akhrida marka ka soo akhrido jaahilnimo ka muuqatay marka ka soo akhrido ilaa ka xeer ba ka dambeeyay ka dambeeyay waa kan كان حيرك هيدك حاليا النظام كم واحد شغال دولتك ما فهمت هو كان خيال كان وين هيدي بدك كان كده بي هذه يقول لي بس لو حيرس نسخر ما وهي حير كان فعل حير كان حاليا نظام حكومه دار اي كذا سو واحد ka hadlaysa maxaa siyaasadda ugu jirta maaha haadiga waxa ku qarsoon Soomaaliya shaqaale dawladeed baad shaqaale dawladeed soo intamatid waa kan hay'ad madax banaan adeeri kaadii soo intay ma lihid inta saaka qanciyay simiir qabto aan bacbacya cabcabi oo hin lahayn dhigiso aniga war waa bacbalaysan dhigiso si adab leh noo dhigiso waliba waxay rabtay xasiga si noo dhigiso waxaan shoonay qeylana naga يلا قبل لا نرسم دبت الفتح وعاد معك السبيشال ممكن يستدي والله وريا
فنانك واحد والشركه مين احنا حسنوا فريسو حسنوا احنا فلوس وين مين Storka ilaalintiisa